guuleed aadan cabdi waa wiil ku nool magaalada Buuhoodle waxaana ka bartay iskuulada qaar ka mid ah magaalada Buuhoodle. Guuleed yar oo loo yaqaan injineer Guuleed ayaa wuxuu ku guuleystay inuu sameeyo diyaaradaha noocyada kala duwan iyo baabuurta iyo dayax-gacmeedka kale. Guuleed yar ayaa wuxuu sheegay inuu bilaabay isagoo aad u da'yar ugu dambeyntiina ku guuleystay inuu sameeyo diyaaradaha kaco iyo baabuur socoto. Injineer Guuleed yar ayaa deeq waxbarasho wuxuu ka helay dalka Turkiga. Dhalinyarada iyo iskuulada magaalada Buuhoodle ayaa waxay ku dhiirigeliyeen shaqada uu ku hayo gacanta Guuleed yar iyagoo ku maamusay shahaadooyin. Waa kan injineer Guuleed oo naga warramay xilligu soo bilaabay. Guuleed cabdi ahna injineer sameeya diyaaradaha qaybahooda kala duwan ahaantii waxay ku dhalatay arrintan anoo aad iyo aad u yartahay isla markaana aan waxyaabo yar ka sameyn jiray kadib waa sii kordhiyay waa sii weynaysay maalin ka sii dambeysay waa sii kordhiya maanta aan marayo inaan maanta soo saaro santalada dayax gacmeed oo ah speed shuttle iyo diyaarad rakaab oo ah diyaaradaha rakaabka oo noocoodu yahay kuwa ko waxaan ka sameeyaa mishiimo aad u dheereynayo oo mishiimadan habeenkooda khudaartii loo adeegsado iyo waxyaabaha kale aan ka sameeyo waxa weeye biro aad u fudfudud oo aan dhuudhuubana markaa wax ka nashqadeeyo iyo shiraacyadan aan goodhadaha meheradaha laga bedelo oo aan inta nashqadeey rinjiyeeyo aan hadhowta qaab diyaaraday kasi aan ku hagaajiyo runtii khalawaadku iska jira laakiin waxyaaba inta badan nashqada markaa sameynayo bay ugu yara khaladaad badan tahay maadaama ay tahay maraaxadu sida baalka shimbirta kale in loo sameeyo oo waxyaabo badan ka rabta si ay hawada u keenahay inaad adigu nashqadaysid marka wax khaladaad kale uga yimaada ma jiraan alxamdulillah insha Allah waxaan rajeynayaa inaan soo saaro diyaaradaha waxaa ka jiro maamulo kala duwan wax maamulo gacanta ku qabtay jira inta ahaantii way jirtaa oo sanadii 2015 markii ugu horeysay aan soo saaray dowladda Puntland baa ay qaaday inaan waxbarasho lagu qaado dalka Hindiya kadib suurtageeyo dhinaca haya yara ka yara madax ka diiday dhinacna madaxda waxa horay u qaban marka maadaama hadda aan ka helo dalka Turkiga waxbarasho insha Allah halkaas aan rajeynaa ku sabta oo tira badan laakiin anigu waxa lagu yiri hadda wada dooranaya marka waxaan rajeynayaa doorta qaybta mishiinada sameynta diyaaradda sameeyntooda iyo pilots oo si diyaaradda loo duulo waxaan rajeynayaa inaan kusoo guuleysto sababta waxaan gelinayaa juhud iyo dadaal badan si aan xirfad ka sareyso dalkayga hooyo uga faa'iideeyo aan u sabarto ruuxda rajeynayaa insha Allah oo warshad diyaaradaha lagu sameeyo insha Allah isla markaana diyaaradaha soo saaro diyaaradaha dalalka jaarka iyo diyaaradaha shisheeye inaan uga marano khaasatan dhalinyarada inka aad ka badan oo jiraan oo isla markaana iga barta waxyaabaha sida loo sameeyo nashqadeynta diyaaradda oo in kasta ay badan yihiin dhinaca dalka iyo korontada ay badan yihiin oo ay waxyaabaha yaqaanaan laakiin yaryar inta nashqadeynta diyaaradda yaqaanaan laakiin taan dalkiina loo hadlaa oo inay dalkooda hadda wax u bartaan ama ay maskaxda tuujiyaan waxyaabo badan oo muhiim ah ay uga faa'iideyn karaan dalkooda iyo dadka. Maxamed Salaad, telefishinka caalamiga ee Bulshada magaalada Buuhoodle.